hawl adag baan haysatay bariga hore dekada naga haysatay waxaan doonayaa inaan laba qiso idin la wadaago mid waxay ahayd kulli saxaafaddu way haysaa waan jecelahay maanta ku soo celiyaan anigoo agtiro maarayuhu iga maqan yahay oo la dhajiro ayaa markab ku gubtay dekada bakhaarka warehouse-ka hortiisa cawsida oo la rarayo oo MV iimaan la yiraahdo ayaa gubtay dekadan jooga waan soo cararay hawadan ku haaftay hawada intaan ku soo ordayay ayaa isla mabadi baad ku dhacday waa waqti gaaray ololka ka baxayay waxaan u qaatay marka cadaabaha laga sheekaynayo ololka ay soo sawiraan cawskii baa cirka qabsaday hay tayr buu taagan yahay markabku aad buu dheer yahay labadii igu dhawaa markaan markabkii u yimi midna madax waaxeedka ahaa ragga nagu sii xiga midna uu nin wakiil ahaa waxay u yiraahdeen intay faash la soo baxeen gaari iga soo saareen markabka xarka u go maraakiibta kale iyo doonyaha kale u gubaya warehouse-ku alaabtii Abu Dhabi ka buuxdu gubaya badda ku gubtay siida ku xigeenku waa canaan ka yaab taray u cadaatay faashkii iyo xarigii lagu dul hayaan arkay waxaan sidii war meesha waad ku ciwaabaysaa dekada ciidaha kaga dhimato ama adigu ku dhimo waanu fuulay sawirada waa arki doontaan haddii baata lagu soo celiyo shaararka lagu baktiyay shaararka ayaa lala fuulay hay teedwayo la xitaa salaanku uu goojinayaa ma gaarayo dhulka ma gaarayo waanu fuulay shaararka lala fuulay war fuula ma miir qabno shaararka ku baktiin ilaahay baa mahad leh dawladda hoose iyo booyad weyn booyadahan dadabiska ay isku hadlaynina dekada ila 18 foostay qaadaan ta ugu weyn haddii aan booyadan dhadeer leeyahay oo 18 foosta qaadaan noo iman oo aanay tii fire kay tuumbada u ridin muu bakteen markabkaas tiumbaa isugu talaalay markabkana qarankiisa waa qodobtaas ana ka yaabana waxa marka cid dhimataa la oranayaa baruu dadaalay uu shaqeeyo halkii wuxuu ka qaaday markabka ilaahay baa mahad abaal marin badan haddii adduun tahay haddii qoraal tahay ma waanu siinay shaqaaliyaha u shaqo guuleystay waa Cabdiraxmaan Haro garanay way qodobka labaad wuxuu ahaa yana xasuusteedu iga harayni markab dagaal baa igala soo hadlay meel saddex habeen uu ka soo soconayo wuxuu yiri waxaan doonayaa waxaan sida 12 qof oo burcad badeeda midna wuu dhintay waxaan doonayaa inaan dekada berbera keeno la tashi badan baan sameeyay war waasday askarof baa la yiraahdo ninka kabtanka marka kooda waxaan nidhi waa Soomaalidu waa inoo dhiiba wii dhiibay nimankii burcadbeedha xagaa ka raacay xagaa la ka qabtay meel Sacuudiga ka shaqeysa xagaa ka tagtay ayl dawladii iyo waan la tashanay iyo ciidankii badda Ahmed Ismaan Abdi Ismaan baa magaca Abdi Xirsi ayaa taliye ka ahaa nasiib wanaag saddex habeen buu soo socday raasiga agtiisa soo taagay aniga aadan dheefur baa gaashaanka u daruuray raasiga agtiisa soo taagay isagoo madaxweynuhu jooga dekada oo markab Ingiriis fuulay wuxuu doonay qasab ku soo dajiyay nimanka eelka yimi dawladii iyo madaxweynuhu wax isku raaceen gudubtooda mar haddaanay halkan ahayn waxaad goosaasay gurigooda wuxuu nin baa dhintay ninkii dhintay waxay dhaxda lagaga xidhay baroosin badda la dhigay iyaga ay sheegay ku burcadada waxaan ku nidhi ciidankayga waa heegan haddaad nagu soo dajiso wixii kugu dhaca adiga qaba adaa ka mas'uula berberuu leegay marka ruushka warship way inta marka nagu waajibnay baqayo 2 kiiloomitir buu badda u marayo ceeldaraad buu dhigay ceeldaraad baan burcadada ka soo qabano hargeysayna ku xidhay maan u mareynaya annagoo awood hayn baan u hanjabnay aad iyo aad baan u mahadsantii dhamaantii